kulanti waxaan daawadal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka warbaahinta ogaal qodobadaan ku soo qaadanayna waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo maanta la kulmay taliyayaasha ciidamada baaqna u diray beelaha ku dagaalamay gobolka Hiiraan xilli xiisad ay ka taagan tahay xilka qaadistii uu Roble ku sameeyay taliyihii hay'adda nabad sugidda qaranka nisa xasan sheekh maxamuud waxa uu dignin u diray madaxweynaha madaxweynaha ka dhamaaday ee farmaajo waxa uuna sheegay in uu joojiyo carqaladeynta uu yiri dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Roble ciidamadii loogu magac daray badbaado qaran oo la sheegay in mar kale ay dib ugu soo laabanayaan gudaha magaalada Muqdisho iyadoo wararkii ugu dambeeyay arintaasi ku aadan ay qayb ka noqon doona wararkeena maanta iyo maamul goboleedka Puntland oo soo dhaweeyay xilka qaadistii lagu sameeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka ee dalka Fahad Yaasin qodobadaas iyo weliba kuwa kale oo xiiso ayaan u daawadayaal ku soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyayaasha ciidamada ay ka mid yihiin agaasimaha ku-meel gaarka NISA Saraye Guud Bashir Goobe taliyayaasha booliiska nabad sugidda gobolka Banaadir gudoomiyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida kulankan ayaa ka mid ah ra'iisul wasaaruhu ku farayo oo la la shaqeynta agaasimaha ku-meel gaarka ee hay'adda NISA sidii amniga loo xaqiijin lahaa dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada Deefow iyo Kabaxanle gobolka Hiiraan ra'iisul wasaaraha ayaana ku booriyay madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle nabadoonada iyo waxgaradka gobolka inay kaalin ka qaataan joojinta iyo xoolista cadaaladda colaadaha kasoo cusboonaadaan gobolkaasi dhanka kalena waxa weli ay xiisada adag ay ka taagan tahay xilka qaadistii uu xalay ra'iisul wasaare Roble ku sameeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka ee Fahad Yaasin siyaasiyiin kala duwan ayaa arrintan si toos ah uga hadlay waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu baaqay madaxweynaha uu muddaxileedku ka dhamaaday ee farmaajo inuu ka waantay uu yiri carqaladeynta dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha maadaama uu baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed uu hortooda ugu wareejiyay mas'uuliyadda dalka kadib markii uu muddaxileedkiisu u dhamaaday xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay shaqo joojin lagu sameeyay agaasimaha nabad sugidda ayaa waxa uu hambalyo u diray agaasimaha cusub ee uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay waxa uuna yiri hambalyo taliyaha ku-meel gaarka ah ee NISA Saraye Guud Bashir Maxamed Jaamac waxaan ku rajeynayaa buu yiri in uu ku guuleysto mas'uuliyadda culus ee loo igmadayo xasan sheekh qoraal uu soo saaray xasan sheekh ayaa waxa uu ku sheegay in ra'iisul wasaaraha uu mas'uul ka yahay dhammaanba hay-adaha fulinta dalka ay ku jiraan kuwa ammaanka jiritaanka hay-ada ammaan oo aan amar qaadan waxay albaabka u fureysaa buu yiri xasilooni darro iyo sameysanka kooxo hubeysan oo sharci ahayn islamarkaasna dalka u horseedi kara burbur iyo carqaladeen waxa uu baaqay dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada inay garab istaagaan dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha waxa uuna yiri waa in mar kasta la garab istaagaa ra'iisul wasaaraha qoraalka ka soo baxay xafiiskan madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu yiri waa in mar kasta lala shaqeeyaa ra'iisul wasaaraha si horumar baaxad weyn leh looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee dalka dhanka kalena maamul goboleedka Puntland ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay xalay xafiiska ra'iisul wasaare Roble kaasoo xilka guud ahaanba shaqo joojin looga sameeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka ee Fahad Yaasin kadib markii uu ka hor yimid amaro ku aadan kiiska Igraan Talida Faarax oo ahayd in 48 saacadood u qabtay ra'iisul wasaaruhu inuu ku soo gudbiyo madaxda ugu sareysa NISA jawaabo waafi ah oo lagu qanci karo ku aadan kiiska gabadhaasi waxaana la sheegayaa in ay arintani ka dhalatay booq siyaasadeed ka ololsan gudaha magaalada Muqdisho waqti xaadirkan iyadoona kiiska Igraan Talida Faarax ay gashay ama ay galaafatay madax ugu sareeyay hay'adaasi NISA dhanka kalena warar laga helay magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen ciidamo dheer ah oo ka tirsan kuwa koofiya casta loo yaqaan la geeyay gudaha dhismaha wasaaradda warfaafinta sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta ogaal media wariyaasha ka shaqeeya warbaahinta dowladda balse madaxtooyada ayaa dhanka kale sheegtay in aan jirin ciidamo dheeraad ah oo la geeyay dhismaha wasaaradda warfaafinta kadib markii la sheegay in TV-ga qaranku uu bilaabay baahinta warar dheeraad ah oo ku aadan baa yiri arrimaha gudaha gaar ahaan xilka qaadistii taliyaha hay'adda nabad sugidda ee qaranka ee NISA
warar qaar aan ilina daawada ayaa sheegaya in magaalada muqdisho laga yaabo inay dib ugu soo laabtaan ciidamadii badbaadada qaran loogu magac baxay kuwaas oo dhashay ama la abuuray xilligii ay taageeneed muddo kordhintii ay baarlamaanka u sameeyeen madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday ee farmaajo, taas oo ka dhalatay ciidamadan inay gadoodaan islamarkaasna si adag uga hor yimaadaan muddo kordhintaasi loo sameeyey madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday ee farmaajo. ciidamadan oo la magac baxay badbaado qaran islamarkaasna kamid ah ciidamada xoogga dalka balse ay dhufeysyo ama saldhigyadoodu yihiin gobolka shabeellada dhexe ayaa la sheegaya in laga cabsi qabo in mar kale ay dib ugu soo laabtaan gudaha magaalada muqdisho maalmaha soo socda haddii xiisada siyaasadeed ee dalka aysan waxba iska bedelin. arrintan ayaana la sheegayaa in loo ogol leeyahay sidii madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday ee farmaajo loo tuso baa la yiri awoodiisa ku aadan baaliya dastuuriga, taas oo ah inuusan wax shaqo ah ku lahayn marka ay timaado dastuuriyan awoodda dalka, maadaama uu ku wareejiyay awoodda ra-iisul wasaare Roble xilli uu baarlamaanka uu khudbad ka jeedinayay. waxaana la sheegaya in ciidamadan badbaado qaran oo iyagu si toosa uga amar qaato qaar ka mid ah baa la yiri madaxweynayaashii hore ee dalka ee Sheekh Shariif Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga cabsi qabaa in mar kale ay magaalada muqdisho kusoo laabtaan. waxaana qoraalo ay soo dhigeen barahooda bulshada uu ka mid yahay xildhibaan Mahad Salaad oo isagoo ka mid ah xildhibaanadii markii horeba horkaciyay ciidamadan ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan haddii loo baahdo saacad kasta ay dib ugu soo laaban karaan magaalada muqdisho xasiloonina u sameyn karaan. arrintan ayaana loo sababeynayaa hadalada kasoo baxaya ee villa Soomaaliya ee ah madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday ee farmaajo, kaas oo uu ku sheegayo markasta inuu ka hor imaanayo go-aanada uu gaaro ra-iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble. sidoo kale waxaa soo taraya siyaasiyiinta qaarkood iyagu u jeedinaya fariimo madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday ee farmaajo, kuwaas oo iyagu u sheegayeen madaxweyne farmaajo ka waantoobo ka hor imaanista bay yiraahdeen amarada ra-iisul wasaaraha, taas oo horey u dhacday baa la yiri dhowr mar inuu ka hor yimaado wareegtooyin uu soo saaro xafiiska ra-iisul wasaaraha. madaxweynaha hore ee galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa waxa uu isaga kamid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu isagana si adag uga hadlay jahwareerka siyaasadeed ee ka dhashay shaqo joojintii Fahad Yaasiin. Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa waxa uu sheegay marnaba aysan noqon karin buu yiri mas'uuliyadda dalka mid dayacan, isla markaasna ay tahay uu yiraahday in xilligan kala guurka ah loo hogaansamay isbedelka uu sameynayo Roble buu sii raaciyay hadalkiisa. xilligan buu yiri lagu guda jiro xasaasi awgeed mas'uuliyadda dalku ma noqon karto mid dayacan, cid walba daraf ku dhegan tahay iyo sharciyad habsan. waxaa ra-iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Roble uu qaatay buu yiri mas'uuliyadda guud iyo maareynta xilka kala guurka, waana in loola shaqeeyaa oo loo hogaansamaa buu yiri isbedelada uu sameynayo. farmaajo waa madaxweyne xilligiisu u dhammaaday oo aan wax awood sharciyan lahayn, waana inuu taas garowsadaa. dalku ma xamili karo qalalaaso cusub oo siyaasadeed ayuu sii raaciyay Cabdikariim Xuseen Guuleed. sidoo kalena waxa uu hoosta ka xariiqin marnaba aan la isku indhatirin buu yiri cadaalad u raadinta Igraan Nataaliil iyo qoyskeeda laguna garabsiyaarintaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda. dalku ma xamili karo qalalaaso cusub, waa inaan dhammaanteen mas-uuliyadda iska saarno hirgelinta doorasho hufan oo aan daahin si loo badbaadiyo miraha dowladnimada. sidoo kalena waa inaan la isku indhatirin cadaalad u raadinta Igraan Nataaliil iyo qoyskeeda oo arrintaasi ku garabsiinaa buu yiri ra-iisul wasaare Roble. Cabdikariin ayaana dalbaday in xilligan xasaasiga mas-uuliyadda weyn laska saaro hirgelinta doorasho oo daahfurnaan oo dalka ka dhacda, islamarkaasna loo hogaansamaa buu yiri amarada kasoo baxaya xafiiska ra-iisul wasaare Roble.